soo gaarnay magaalada Mombasa raaxa oo magaalada dalxiis ah loo soo dalxiistay. Kumbaan u baahnay inaan cabno mtengenezee moja kumbaan la bombo inuu waa muhiim cabitaankiisa inta ugu badan waxaa laga helaa dhulka xeebaha banaanay inaan hal xabo aan tijaabin dhulkan aad u kulul yahay xeebeedka idil ba aad u kulul Soomaalidana inta ugu badan dhul xeebeedkeeda dhulku u kulul ka mid yahay ama webi ha maro ama bad ha marto aad bay u kulul yihiin sidaasay si la mid ah halkan waxaa nimid Mombasa aad u kulul ayada naftirkeeda xilliga qowdaha waa jirtaa laakiin aad bay u yar kuna ini be uko ngoje ngoje kazam nishike cabitaankiisa aabo waxaan u maleynaa dhowr iyo 10 sano maanan cabin waa arkay meelaha isagoo yaalo laakiin waa tijaabinaa testigiisa muddo kadib maskaxda waxay ii sheegtay dhadhankan inuu yahay dhadhan aan aqaano laakiin mar dhow aan tijaabin bismillah روي لي ما أقاني عدام كل يوم قبضة وبرينا أنا أفريكانا هاي أفريكا نسانا وعبتها واجي هوري بدأ markaan imaanayno group aan ugu imaan jiray markii la qabeysanayo group aan ugu imaan jiray hal qof waxa la dhihi jiray niyo dharka noo fiiri trip iyo maxaa la yiraahdaa waqti la isku bedel jiray asagana waqtiga soo qabeysanayo qof kala bedel leeyahay saasaan naqaanay laakiin maalmahan waxa u malaysaa in la fududeeyay qolyaba ay shaqo ka dhigteen dharhaynta iyo waxyaabaha badda looga baahan yahay waxaan joognaa halka aan taaganahay xeebta ah waxyaabo badan oo xilligii hore aan u baahnayn anaga inaan helno halkan hadda timaado adigoo jenis wata dhar lagu siinaa buuma ku qoystaa lagu siinaa fanaanada lagu siinaa dharkaaga meel aad dhigatidna waa lagu siinaa wax walba aad u baahantahay jaajar wax walba aad u baahantahay waa heli halkan waa lacag xisaab weeyaan tii hore qof lagu dhaafanayo oo kaliya ma aha ganacsi laga dhigay meelaha dharkaaga keeshid wax walba aad u baahantahay badda loo isticmaali lahaa oo idil halkan waa kuuleysaa lagu leeyahay buuma hadda ka soo ilaawday buumaha lagu qabaysto haddii aad u baahan tahay maxaa la yiraahdaa funaanad kulli waa helaysaa wax walba waa laga kireynaa laakiin jeelka qiimuhu lahaa qoliyo meeshaan ka qaaday xeebtay keeneen konto shilin lagu fuulo ayay taagan yihiin waxaanu dollar aan dhameen qiimihii geelku uu lahaa ee la siisan jiray gabdhaha gabaati yaradkii lagu bixin jiray meherka Allahul musta'aan diyada lagu bixin jiray dhammaan waa garan laayeen konto shilin ka soo qaadeen konto shilin lagu kireynaa geelka inaa fuushid meel halka ku gaartid aad ku soo laabatid baaskiil amal waxa ku soo gaabay sheekada iskuulkan ajoogno wuxuu ku yaala xaafad la yiraahdo Bondeni oo ka tirsan Mombasa Bondeni markaan waraystay waxay ii sheegeen Soomaalida inta ugu badan xaafadda ay u badan yihiin inay tahay xaafadan ayna ka ganacsadaan raashinka
iyo dharka labada shay u badan yihiin la yiraahdaa marka laga reebo Soomaali kale oo ganacsato waaweyn ah dekedaha wax kala soo degay kuwaana inta ugu badan xaafad kale oo gooni halka ka baxsan ay degan xaafadaha ay Soomaaliyeed degan tahay waxa kamid ah sidoo kale Kisauni xaafad yiraahdo ee culimada Soomaaliyeed ee Soomaalida dhexdeeda ka wacaansan ee Kenya ay ka soo baxeen waxa ku yaala markaas weyn Kisauni la yiraahdo xaafada ku magacaabo xaafadaha ugu waaweyn ee ka tirsan tahay Mombasa كان أوجدان وفرسكي عصري هورا الاستعمالي جري كل يتدور بقول كل سجاد بقول يوحي كهربي الاستعمال كان الكوارث إيماني فسحنا الاستعمال جري دولها لو كان جوش جري لنا هنلقوا كلا قبسي لكن حال هو بدل مي مرشيدس جارية يمين كذا عدد بيارة إيماتي الدنيا لو كلا جوش فرس كان وإلا برتا هدي شقيم ويسو جاري يوم وحيسو صار المكان حتى دكدي ويان wax ka soo degan